dhegaystayaal toddobaadkii ina soo dhaafay waxaan barnaamijkan ku soo qaaday xiriirkii ka dhaxayn jiray saygii iyo afadii Soomaaliyeed ee hore anigoo mar walba ku mudacayay inay suugaanteennu gaar ahaan maansadeennu ay beeninayso dooda ay dadka maanta qaarkood qabaan ee ah inay raggeenii hore dumarkooda ku gaboodfali jireen ulana dhaqmi jireen sidii qalab ay leeyihiin oo ay siday doonaan ugu adeegtaan. waxaan barnaamijka ku soo qaaday kaalintii ay afadu lahayd ama ay kaga jirtay socodka nolosha qoyskeeda, qadarintii uu saygeedu u hayay iyo siday labaduba uga fogaan jireen furiinka iyo sababo aan macno lahayn inay ku kala tagaan reerkoodana ku baabi'iyaan. sidoo maantaba uga yahay meelo badan oo dunida ka mid ah, sayga ama ninku isaga ayaa ahaa madaxa reerka. taana waxaa qasab ka dhigaysay dabeecadda nolosha, gaar ahaan tii xoola raacatadeennii ee u baahnayd muruq iyo hawl oogo oo aan qofka dumar ahi daaqad u lahayn. ha yeeshee madaxnimada ninku macnaheedu ma ahayn inay afadu ahayd ama uu isagu u haystay qalab si gaar ah socodka noloshiisa u taabageliya. waxay ahaayeen laba ruux oo aan ku kala maarmin nolol maalmeedka joogtada ah, oo hadduu mid kaalintiisa gabo uu dhismihii qoyska iyo barbaarintii carruurtuba ay cidhiidhi galayaan. waxay ahaayeen laba tiir oo midkood walba looga baahnaa inuu midka kale kaabo oo uu kor u hayo. had iyo jeerna labada tiir midka sii adagii wuxuu ahaa afada, waana loo aqoonsanaa. ninku wuxuu ku jiri jiray wax tabac guud iyo inuu kolba soo kordhiyo xoolaha nool ee caanahooda iyo hilibkooda lagu noolaa. afadana waxaa laga rabi jiray ama laga dooni jiray xoolaha iyaga ah daryeelkooda hoose inay u fognaato, gaar ahaan kuwa aan geela ahayn ee iyada iyo hablaheeda aan la guursani ay dhaqaalahooda ka adkaan karayaan. dumarka lagama dooni jirin ama laguma qasbi jirin inay geela xiriyaan, inay arooriyaan, inay shubaan, inay ceel u qodaan, inay dawlisyo lagu shubo u sameeyaan, ama inay xeriyo iyo golayaal u asteeyaan. markii xoolaha la dhaco, hawsha dumarka kuma jiri jirin inay inta hub qaataan wax ka duulaan oo goobta dirirta sida ragga ugu go'aan. lagamana dooni jirin inay sahmiyaan oo inta socod dheer la geliyo laguma qasbi jirin inay habeenna u dhaxaan ruga cusub oo reerka loo hayaamiyo. howlahaas oo idil oo ninkii soo arkay ama kan weli ku jiraa uu dhibaatadooda garan karo, waxaa iska lahaa sayga oo waa kaalintii socodka nolosha qoyska uu kaga aadanaa. afadu waxay lahayd hawl aad moodo inay taa ka fududayd oo u qalanta awoodda oogo ee ay dabeecadda noloshu dhadigoodka ugu tala gashay. howlaha markaan fududaan ku tilmaamayo uma jeedo in fadhi iyo nasiino lagu qaban jiraye waxaan barbar dhigayaa kuwii sayga u gaarka ahaa ee awoodda oogadiisu ay ku qasbaysay inuu isagu ka soo baxo. wax walba ninku ha qabto, xoolo kasta ha soo ururiyo, sir iyo saaqba tacab adduunyo ha ugu kabtiyee, mar haddaan haweenaydu ka soo bixin kaalintii ay qoyska ku lahayd ee ay ka gaabiso wixii laga filayey, waxaa la dareensanaa oo raggeennii hore ogaa inaan reer iyo dhaqmaatoonii halkaa ka sii socon karin. ismaaciil nuur faruur buur, gabayaaga la odhan jiray, ayaa saluugay afadii uu qabay oo u qaatay inay kaalinteedii ka gaabisay. waxay la noqotay wax walba oo uu dhismaha reerka iyo wanaaggiisa u sameeyaaba inay yihiin hal bacd lagu lisay, mar hadday afadii qaybteedii ka soo dhalaali weydo. gabay uu iyadii kula hadlay ayaa waxaa iga soo gaaray: hawo duniyadeed waa intaad gelinba haysaaye, hal haddii aad leedahay labaad ku hindisootaaye, hir kolkii aad dhaaftaba mid buu kaa horbixiyaaye. haddaad haadka duuliyo sidii haatufka u roorto, ood hagar la'aan xoogga tahay haalig iyo maalig, oo aad habeen iyo dharaar soo hargeli weydo, asaan hoosta reer laga dhaqayn kaama hawl baxo haantaan gun loo tolin biyuu ku hakan maayaane, ku harraaday naag yahay intaan hoyday ku lahaay. kolkay afadu jilicsanaato oo ay hawsheeda gabto, haddii la rumaysnaa inuu dadaalka ninku barkumataal yahay, lana mid noqonayo sidii nin weel daloola biyo ka buuxi isleh, waa maxay aqoonsiga iyo qadarinta taa ka xeel dheer oo kaalinteeda laga maarmaanka ah lagu muujin karaa. haantaan gun loo tolin biyuu ku hakan maayaane, ku harraaday naag yahay intaan hoyday ku lahaa. furiinku bulshadeennii hore ceeb buu la ahaa markaannu leennahay, macnaheedu ma aha ma dhici jirin, dunidana meel uusan ka dhicin ma jirto. labada qof midkood kolkuu ka quusto
ama uu kan kale ka waayo tilmaamaha wan wanaagsan ee uu jeclaan lahaa inuu ka helo qofka uu noloshiisa oo idil la dhammaysanayo ayuu furiinku yimaadaa. raggii hore ee Soomaaliyeed si walba way uga maagi jireen inay wax fudud qof dumar ah ku furaan, xataa haddii ay taasi ku qasabto inay ka minyareeyaan iyagoo wax kororsi ka sokow uga jeeday min weyntu inay reerkeeda hanato oo anshaxeeda wax ka beddesho. waa kii Ismaaciil Mira lahaa, gabar bilic leh oo baaxad weyn beri haddaad maagto, bilad iyo xariir iyo haddii boqor ka laalaado, bidhaantaada oo idil haddaad biicsasho u dhiibto, aqal buur go'eed la eg hadday beejima u raacdo oo buuni kuu meheriyood barata xaalkeeda, bawdada kahaadadu hadday soo banbixi weydo, aad weliba baanbaanisoy biidna garan weydo, inaad naaga kale baabsataad kaga bogsootaaye, budda hadday gashoy iilatana kaama ba'o ciilku. bal u fiirso afada uu tilmaamay ee uu inoo sheegay tayadeedu siday u liidato. furiinkula degdegi maayee wuxuu ciqaabta ugu weyn uga dhigayaa inuu ka minyareeyo. taasina waa ciqaab si walba uga fududayd facsharka furiinka iyo carmali magac ku yeero oo ceeb weyn la ahaa ama la ahayd bulshada aan sheekadeeda hayno. inkastoo bulshadaasi diinta muslimka haysatay oo dhowr dumar ah guurkoodu ninka u bannaanaayeen, haddana waxaa jiray ragga qaar ka digay mar haddaad reer leedahay inaad reer kale yegleesho. xasan xayle waa kii lahaa, adoo guri leh guurkaa labaad waa garaad xumo yaanu labada geesood masayr kaaga guban reerku. adoo guri leh maxaad uga jeedaa baa la weydiiyo, wuxuu ku jawaabay baa la yidhi, adoo afo wanaagsan qaba ayaan uga jeedaa. qadarintii ay raggii Soomaaliyeed ee hore dumarkoodii u hayeen waxaad ogaan karaysaa mid kaalinteedii qoysnimo si walba uga soo dhalaashay markay inta in badan la noolaadaan ay geeriye ka qaado, dabadeedna xiskiisan ama si kale ku soo gashayaaba ay mid liidataa halkeedii u soo gasho. haweeney Rooxo la odhan jiray ee uu jeclaa markay ka geeriyootay ee uu guursaday tu kaloo uusan mahadin, waatuu Maxamed Liibaan Gabiye ee tixdiisii ku soo gunaanaday, dumar inaan ka raagay ekayd Rooxo dabadeede, rag haddaanu ii gelin sidaa uguma roreen. Samatar Baxnaan gabayaaga la yidhaahdo oo ay ka geeriyootay Cibaado oo malaha marwo dumar uu u arkaayey, kolkii walaasheed loogu xigsiisimay ee ay wada dhaqmeen wax badan, waa kii inta taa dambe saluugay ku maansooday, carradaa ilaah leeyahee ciiddu wada taallo, inkastoo cirdoog lehi ku do'o caawo iyo maalin, meelaan cagaar geed sariyo caws ka soo bixinne, casar dabadii goortay martidu kula carraabayso, cawriga hal baa looga biqi, caynta aadmiga candhadeeda iyo naaska waad ka cajabaysaaye, misna canuga jalisaan lahayn caana kaafiyahe. curadadaba qaar lagu tabcoo ciil tiraa jira caleemaha kandoogaba bar baan carun ku laabnayne, caku dunida cuur wada dhashaa qaarbacan yahay, yaa yidhi cibaadiyo tanaa caana wada nuugay. meeshaad qof ka qaadanayso qof baad uga tagtaa, waa tii la yidhi. qadarinta iyo xuska wanaagsan ee uu Samatar Cibaado u hadiyeeyey wuxuu wax ugu dhibay walaasheed oo uu tixda ku canaananayay. ha yeeshee haweeneydaa dambe ee maansada ku dhaawacantay iyo dumarka la qabo oo idil waxaa qadarin iyo hiil isula soo taagay nin kale oo aan magaciisu isoo gaarin, kaasoo ay la noqotay inay ceeb tahay saygu inuu afadiisa ka sheekeeyo oo wixii goldaloolo ah oo ay la soo baxdo uu soo bandhigo. ninkaasi wuxuu yidhi, qaybtii ilaah lagama dudo, qaafku suu dhigaye, qallooc weeye waayeel qodqoday, qabar dahsoonaaye, ma qumana nin weynoo ka ma'ay, lagana qiirooye, qasaaroowyey oday meel ka dhacay, qadafna waa ceebe. qaar qaali nagu soo galoo quusahaa jira annaguba hablaha waa qabnaa waana qarinaaye, ninkii qaawiyaa dumar ku arag qoonsimaad badane, qaylada maxaad Samatarow kor ugu qaadaysa. inkastoo uu ninkaas laftiisu ceeba sheegay oo uu xataa aqalkiisiiba farta ku guday, haddana wuxuu rumaysnaa oraahda ah sayga iyo afadiisu waa ruux iyo maradii, mid hadduu mid ka warramana ay falxumo tahay. waxayna markaa oo kale ku ducaysan jireen, allow aan maradayadu naga warsheekoon. dhegaystayaal, barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee maantu intaa ayuu noogu dhan yahay.
waxaana inoo ballan ah toddobaadka dambe markaa oo aan idiin soo tabin doono doorashada hore ee guurka wixii ay ragga iyo dumarkuba ka yidhaahdeen iyo nimankii afooyinkooda waaniyey qaarkood wixii ay kula hadleen.